السلام عليكم أصحاب تقاليق ميل كستو الدنيا ka joogtaan walaalkii sulabo idin la waqtiga haydin wacnaado maanta barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay ciyaar feera oo u dhaxaysa Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi oo muddooyinka ugu dambeeyay social media la qaadaa dhigay box matchka ama ciyaartaas oo ka dhici doonta Cariga iyo Turkiga bulshadaan la dhaxmari doona mikrofoonka waxaan weydiin doonaa ciyaarta u dhaxaysa labada YouTuber keeba badinaya walaalkii soo dhaw barnaamijka sulabo iyo su'aalaha waan dhawahay walaal maanta su'aashana waxa ay ku qotobtaas ciyaar u dhaxaysa Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi ciyaartaas oo ka dhici doonta Cariga iyo dalka Turkiga marka labada YouTuber hadii ay suurto gasho matchkaas uu dhaco keebaad isleedahay uu badinaya niyo horta aniga raayahan fikirkayga waxaan taageersanahay Dirisla sababtan u taageersanayna waxay tahay Rashka Boy waan naqaana hootu meesha ku haya meeshan adeer asma iyo mataqaana iyo xabsal la qabsan maayo rag baa la feertamaya marka anigu Dirisla taageersanahay mar walba marka waxa leedahay matchka haduu dhaco Dirisla badinaya Dirisla guuleysanayo absolutely 100% walaal ku soo dhaw barnaamijka sulbiya su'aalaha waan dhawahay walaal adigu magacaaga ku bilaabay Samsam walaal Samsamay waxa jira YouTuberada Soomaaliya ma daawatid YouTuberada baa jira ciyaar boxan oo feera isbalansaday muddooyinka ugu dambeeyay social media aad loo bumbuuninayay ciyaartaas waxay ka dhici doontaa Cariga iyo Turkiga waxaan u dhaxaysaa ciyaartaas Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi marka labada YouTuber keeba isleedahay uu badinaya hadii ay qabsoonto ama ay dhacdo ciyaartaas waxaan isleeyahay Dirisla Cabdi sababta Rashka Boy uu booto badayay marka wixiis waa booto ma isleeyahay marka waxa leedahay hadii garoonka la sugu yimaado Dirisla waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii sulbiya su'aalaha وي صاحب حاجة حالتك سموناكسني برامج دوبيسي نو برامج دوبي صاحب برامجك waxa weeye labada YouTuberada Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi waa kuwa balansan ciyaar feer ciyaartaas ka dhacaysa Cariga iyo dalka Turkiga marka waxaan doonaynaa labada YouTuber adoo fikirkaaga kaashanaya matchkaas hadii uu dhaco YouTuber keebad leedahay uu guuleysanay horta ku dhawahay sulub official marka hore asxaabta oo salaamaya kulada fikirkii ka dhiibto anigu waxaan aaminsanahay ninka odayga si badan booteynay moogta xalay ragna bootoolku aqoon door bootoolku yaqaan ma garad hebel ma garad marka anigu waxaan oran lahaa ninka Cabdisaaq Cabdiya Dirisla Cabdi micid baa jirta celin kale tina irmaan wili maalmahan jiimto galay boxing ugu daray wuxuu yiri isbuucan gudihiisa iga eeg Istanbul marka anagu reer Dirisla nahay niyo team Dirisla samuujiyo walaalku soo dhaw barnaamijka sulub iyo su'aalaha wandhow adoo magacaaga ku bilaabay aniga barraabsi barqadow su'aashu waxa ka waranaysaa ciyaar baa jirta ciyaar feera oo u dhaxaysa Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi ciyaartaas waxay ka dhici doontaa Cariga iyo Turkiga marka ciyaartaas hadii ay dhacdo YouTuber keeba isleedahay waa badinaya adoo dadka qayb gelisaa laba ka badan waa waxaan hadda labada nin ma u dhaxaysaa hadda labada nin ma u dhaxaysaa Dirisla iyo Rashka Boy Dirisla badinaya walaalku soo dhaw barnaamijka sulbiya su'aalaha waan dhawahay walaalo adigu magacaaga ku bilaabay magacayga waa ayaan aniga ayaan walaal YouTuberada Soomaaliya ma daawatid YouTuberka la yiraahdo Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi soo taqaani muddooyinka ugu dambeeyay waxay social media isaga booteynayeen inay ciyaar feer wada ciyaari doonaan marka ciyaartaas waxay ku wada ciyaari doonaan dalka iyo Turkiga marka keebaad isleedahay uu badinaya hadii aad fikirkaaga أنا فكرك عن Dirisla Cabdi sabab دويس كعدايا بلاصو walaalku soo dhaw barnaamijka sulub iyo su'aalaha waa ku dhaw walaal macaan adoo magacaaga ku bilaabay Cabdinaasir baa la Cabdinaasir oo su'aashu maanta waxay tahay wad YouTuber Soomaaliya wada adsana laba YouTuber baa jira oo la yiraahdo Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi labada YouTuber muddooyinka ugu dambeeyay waxay isaga booteynayeen dhanka social media marka waxay balansadeen match ka dhacay Cariga iyo Turkiga marka matchka hadii uu dhaco waa boxing food hadii uu dhaco labada YouTuber keebad isleedahay uu guuleysanay anigu fikir ahaantayda daadibto waa nin tahriib soo maray Dirisla Cabdi cunug yar oo biidhaayo baradho ka dhargay maaha marka anigu waxay ila tahay Rashka Boy iska booteenayay Dirisla Cabdi waa ka awood badan hadii si loo fiiriyo marka ninka feeriyahay iska dhigayo feerka maskaxda u baahanta wuxuu ku khafiifay naag buu ku khafiifay ninkan sidiisa marka anigu waxay ila tahay Dirisla Cabdi waa badinaya marka waxa leedahay matchka Dirisla Cabdi baa guusha qaadan insha Allah Dirisla Cabdi waa guul u rajeynaya Rashka Boy waa baradhe walaal ku soo dhaw barnaamijka sulub iyo su'aalaha aad baan ugu dhawahay walaal adoo magacaaga ku bilaabay Cabdiraxmaan Ciise wali Cabdiraxmaan su'aashu waxa ka waranaysaa
waxaa jira ciyaar u dhaxaysa ciyaar feed oo u dhaxaysa Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi oo Cariga iyo Turki ka dhici doonta ciyaartaas haddii ay qabsanto keeba badinaya isleeda ciyaartaas haddaan ciyaartaas soo koobo kolleyba Dirisla Cabdi waan garanayo Rashka Boy way ugu cusub yahay kolleyba dekaan aan garanayo Dirisla Cabdi hadda ma saa uma aan dhigeysto laakiinse Dirisla Cabdi uma dooranayo inuu ciyaarta ku guuleysto insha Allah inuu ciyaarta badin doono aad iyo aad walaalku soo dhaw barnaamijka sulub iyo su'aalaha waan ku dhawaay walaal adigu magacaaga ku bilaabay xamse Idris Maxamed xamsow waxaa jirta ciyaar boxana ama ciyaar feed oo u dhaxaysa labada YouTuber la yiraahdo Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi ciyaartaas waxay ka qabsoomi doontaa Cariga iyo Turkiga haddii ciyaartaas qabsoonto ama ay dhacdo keebaad isleedahay YouTuber keebaad isleedahay guushu way raaci doontaa waxaan isleeyahay ninka Rashka Boy bay guushu raaci doontaa walaalku soo dhaw barnaamijka sulub iyo su'aalaha waan ku dhawaysaa adigu magacaaga ku bilaabay Cabdiwahaab Maxamed Cabdiwahaab walaal wax koransa su'aashu ciyaar feed oo u dhaxaysa Rashka Boy iyo Dirisla Cabdi ciyaartaas waxay ka dhici doontaa Cariga iyo Turkiga haddii ciyaartaasi qabsanto YouTuber keebaad isleedahay guushu way raaci doontaa Dirisla Cabdi ninkaas guuleysanaya Dirisla Cabdi waa darisin doona